xamde cabdi axmed xamde kuweyn oo ka mid ahayd fanaaniintii lagu bilaabay kooxda xidigaha geeska ayaa hargeysa ka sheegtay inay guud ahaanba fankiisaga hadhay. xamdi waxa ay ku dhalatay magaalada hargeysa sanadkii 1993 bishiisii saddexaad. haddaba xamdi oon kula kulmay gurigeeda hargeysa ayaan ka wareystay arrintani iyo heerka fanka soomaalida ee xilligani. maxaa kugu kalifay inaad fanka ka baxdo? aad baad umahadsantahay sagalay walaal. horta caawa waxaan aynu isugu nimay halkan ama barnaamij faneed ma wadno. dhammaanba horta waxaan salaamaya ummadda islaamka soomaali maxamed meel kastoo joogto ayaan salaamaya. sagalay imika intii sanadkii imikayna dhaafay 2017 iyo 18kii aynu ku jirno 17ka intiisii dambe ilaa 18 aynu ku jirno fankii shaashadii waan ka maqnaa. layguma arag waxay igu dambeysay 17kii sanadka habeenkii happy new year-ka hees aan barnaamijka kaga qayb galay sanadkan. markaa walaalo anigaa go-aansaday inaan fankii gebi ahaanba ka baxo. anaa isu garan waayey markii horena cidigumay qasbin, imikana anaa sidaa jeclaysta inaan ka baxo. dadku waxay isweydiinayaan xamde maxaa ku kalifay, ma kooxdii bay ka baxday oo waxay gelaysaa koox kale, mise guud ahaanba fankii wixii la odhan jiray oo dhan ay isaga baxday xamde? may walaalo kamaan bixin kooxdii oo keliya ama xidigaha geeska kooxdii aan ka midka ahaa ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa waqti xaadirka aan iyaga ka mid ahaayoon ku jiray kamaan bixin. fanka gebi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegayaa. soomaali meel kastoo joogtaan u sheegaya. markaa fankii baan ka baxay walaalo. waa hagaag. heerka fanka ee waqtigan xamdaay maxaad ku qiimeyn lahayd? wallaahi sagalay fanka heerkan maanta aan joogno ama fanaaniin ahaan la joogo haddaan qiimeeyo markaan fanka soo galayay iyo maanta markii aan gudagalay dhowrkaa saneen ku jiray horta different weeyaan weyno ballaaran. markaan soo galayay aad buu ila qurux badnaa, wax baan ku hamiyey, wax wanaagsan. laakiin sidii way aad magac baana fan soomaali laga dhaxlaa oo maanta xamde kuweyn ilmaha yar labada jirkaaye ama yacni madaxa la kacay ayaa garanaya. magac baan ka dhaxlay aan odhan karaa xamde kuweyn. markaa walaalo waxaan ku qiyaasi lahaa wallaahi dee dad badanoo waxaa jira aniga sidaydoo kala caawo aan ama niyada ku haya qofba marun buu jeclaadaa ama fanka galaa. ilaahay soo hedeeya. waxaan aada ugu faraxsanahay anigoo da-yar anigoo dhallinyara miirkayga qaba inaan caawo ilaahaygu guuleeyey inaan ka toobad keeno ama ku dhawaaqo ama social media ka sheego inaan ka baxay. aad baan ugu faraxsanay, ilaahayna waan ugu mahadinaya. waa hagaag xamda. fanka sidiisaba maxaa laga dhaxlaa, ma laga taajiraa horta fanka gebigiisa? sagalay waad mahadsantay walaalo. kolley qofku fanaan hadduu yahay ma fanka soomaalida mise dadka caalamka ayay aynaan dee hiigsan karin. fanka soomaalida magaca ayaa laga dhaxlaa laakiin maal lagama dhaxlo. waxaan tiyo oo laga samaystaana ma jirto laakiin magac baa laga dhaxlaa. hadday noqoto fanaaniintii naga horreeyey waa beri, hadday noqoto qaar kasii horreeyey dee magac ay ka dhaxleen. laakiin maanta meel kastoo joogaan waa la ogyahay, mid kastoo xanuusta, mid kastoo wax ku dhacaan. dee fanaaniinteenii fankii soomaalidaaba iska noocaasa oo adigoo magac lahaa oo intaad dhallinyarada ahayd in lagu siday oo heblaayo waa hebel lagu lahaa. maanta haddaad ummadii wax uga baahato ama aad da kugu dhaco ama xanuun waxaan ku yidhi waad aragto fanaaniinteeni waaweynaa lagu baahayno ilaa hebel baa dhakhtar yaala ha la caawiyo. markaa magacuun buu leeyahay. markaa waxaan isku daba qabanayaa ilaahayna igu guuleeyey oo nagu mahadnaqayaa anigoo da-yar inaan ka tashaday. dhammaan inta ay niyadda ugu jirto ama inta fanka kusii jiri doonto waxaan leeyahay intaan wadkeena ama waqtigeena aynaan gaadhin ka tabaabushaysta. kolley way arkeen wuxuu yahay fanku dee uma kuga sheekayn maayo. waa hagaag. xamde ma jirtaa cid cadaadis kugu saartay oo gaara? ma cid baa jirta kugu cadaadisay oo ku tidhi fanka ka bax oo in badan kugu celcelisay? walaal may cid maanta igu tiri fanka ka bax ma jirto. waxaan odhan karaa hooyaday waa sheekhad in badan
ayay ilaahay ii hor istaagtay ducadeedii in laga aqbalay ayaan aaminsanahay oo ama anigoo ama hees soo tumayo ama xilli dambe socda ama anoo sii baxaya maalin ole waxaan soo laxamaynaya oo ilaahay hortaagnid in ilaahay waxaan baran aniguna ku qiyaasaya in ducadii hooyaday la aqbalay waana ku faraxsanay haddiiba fanka aad ka tagto dadku waxay isweydiinayaan xamda kuwiin maxay qaban doontaa maxaad qabanaysaa walaal haddaan fanka ka tegay kulley magac baan ka dhaxlay fanka waxaan rajeynayaa insha allah magacii xagga fanka iyo heesahan kusii wadila business baan ku bedelaya insha allah xamda gabagabada maxay tahay fariinta aad u gudbinayso bulshadii taageerayaashaadii soomaalidii ummadda muslimiinta aad baad u mahadsantay isagale dhammaanba horta intii i taageeri jirtay markaan waqtigan fanka ku jiray waxaan leeyahay go-aanka anaa qaatay caawa inaad igu taageertaan khayrka inaad igu taageertaan waxaan anigu maanta habi ku ahay inaad khayrka igu garab istaagtaan iina ducaysaan saasaan odhan lahaa waa hagaag xamda sida aad noo sheegtay ama aad ka dhawaajisay ama aynu wada ogsoonnahayba in badan ayaad shaashadaha ka maqnayd oo sida aad sheegtay aad shaashadaha ka maqnayd inkastoo aanad beryahaasi waxba tumin haddana waxaa jirta hees shalay toole lasoo geliyay youtube-ka oo baraha bulshada laga arkayay oo cusubood bks la qaadaysaan arintaasi sidee isku waafaqi laada isagale walaal heestan waxaan ku qaadnay jabuuti aniga iyo maxamed siciid bike waqti aanu joognay jabuuti sanadkii hore bishiisii 11 ayaa heestaa la tumay isaguna waqtiga kooxda khilaaf baa jiro uu ka baxay heestii sidii bay dhulka u taalay aniguba waxun baan ku war helay anoon ogeyn cid soo gelisay iyadoo social media dhex socota markaa laftirkayguna maan wargelin oo waqti xaadirkii anoon shaacin oo isla sheeg waqtigaad fanka ka baxayso iyo heestaydii baa kulantay taasaan igu kaliftay inaan caawa duubo heestaasi maaha sanadkan iyo waqtigan aan fadhiyey toona waxa weeyaan 2017 bishiisii 11 anagoo bk jabuuti joogna ayaan halkaa heestaa ku duubnay mana aha wax cusub anoon ogeyna waa la soo geliyay youtube-ka walaalo markaasaasay ku baxday ta kale waxaan ka codsaday axmed weli ibraahim furunle walaalkay heeso kale oo dhowra oo iga hayay oo keligeeya inuu dhulka dhigo oon dib loo soo saarin ama social media youtube-ka lasoo gelin insha allah taasaan isagana ka codsaday waxaa kaloo aan ka codsanayaa dhammaanba qolooyinkan leh websaytada ama youtube-yada sameeya sida heesahoo kale lagu rido kuwaygii hore kolley way ka buuxaan oo dee caawa haddaan isdhaahdo midh iyo 2 iyo 3 ka saar suuroobi mayso waxaan ka codsanayaa dadka isticmaala youtube-ka ee heesaha soo geliya inay ka saaraan heesahayga ana igu taageeraan go-aankan qaatay meel kastay joogaanna waan u mahad celinayaa inayguna taa igu garab galaan ayaan rajaynayaa iina soo duceeyaan aad baan u salaamayaa soomaalida meel kastay joogto kooxdaydii xidigaha geeska oon wanaag badan iyo waqti badan soo wada shaqaynay ayaan iyagana aada u salaamayaa dhammaanba soomaali waan salaamayaa wahagaag xamda dad badan ayaa jira oo dhalinyar u badan oo imika fanka soo galaysa ama intii hore ku jirtay iyaga maxaad halkan tala uga jeedinaysaa sagale waxaan odhan lahaa dhalinyaro ama hablo ama rag iyo dumarba kuwii kusii jiray fanka waxaan talo ama tusaale uga tegayaa waxaan leeyahay maanta haddii aynu kusii waarno waynu ognahay lacag kama dhaxalno wax kama qabsano fanka soomaalida wayska sida hooyaday baan xasuustaa mar walba iga oran jirtay fanka soomaalida waxa weeyaan wax ma dhaqato wax ma dhigato dhasheeda cunto markay dhimatana cadaab dhaxasho taasaan qabaa inay tahay marka waxaan leeyahay ilaahay haydinka soo hadeeyo ilaahay haynaga wada hadeeyo ilaahay toobada saxda iyo tubta toosan allah haynagu silmo